الحمد لله رب العالمين. فرحوين بيتها هنا ساكا اسبيتالك منهل كسو بوقدو howlwadeennada isbitaalka madaxda isbitaalka iyo bukaanada kala duwan ee goobtan ku sugan. runtii isbitaalka manhal wuxuu ka mid yahay isbitaalada ugu dadaalka badan xilligii ay gobolkan wajaheen duruufaha adag duulaanada maamulka Soomaaliland ku soo qaaday aad iyo aad ula tacaalay. waan ka mahad celinaynaa waxa kale inama gaari karaana waxaan leenahay Allah in barakeeyo waa dadaalaysaan waana sii wadan doontaan dadaalkiina insha Allah waxaan rajaynayaa in aynu xaaladdan dhaqso uga baxno oo Ilaahay uu inaga saaro xolka duulaanka muddada inagu dul fadhiyay waa xaq darro dadkan bukaanada ku wada booqanay isbitaalka guud iyo kan mahbal manhal inta waxa weeye dad aad ka dareemayso in bartilmaameedyo gaar ah laga abaarayo xabad joojin ayaa la sheegay saakadan u dambeysay anigu aan magaalada ku sugnahay xabadii waa soo dhacaysa isbitaalkana waxa la keenay qof dhaawacyadaasi ay soo ku dhaawacmay oo shacaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin waa la dadaali doonaa insha Allah wax kasto aan inuu ku soo kordhin karo moral iyo maskax iyo manfac mid walba waan ku dadaali doonaa haddii Alla idmo aad iyo aadna waad mahadsantihiin dhamaantiin. ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.